been shalay doraad waxaan maqlayay dumar iyo rag iyo isu tagay oo le Muuse oo ciidanka fasax oo ciidan oo Mariyaa jeexjeexay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun marka waxay u egtahay 32 sanadood sheegtaan inay beentaa ku wadeen aniga maanta haddii aan soo naxajiyey laas caawadna xor ii tahay mugeeraan masaajka galo ayaa ay habsan waxa hadda waxaan ku arkayo lay tusay ninkii suldaankii guud ay sheegayeen oo booshash iyo bambooyin kuwii laga tuuritay gacanta xiran waa dagaalamayaa wuxuu soo weerarayaa SSC waa beentii ay maxay ku wardeen marka salaanteeda waxaan ugu horeysiinayaa madaxweynaha isimada jamaahiirta lagama tegi karo iyaga wax bilaabay saxaafadda ciidamada reer Gagoori in Allah inta isoo dhanbaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan u faraxsanahay hadal badan anigu hadda isuba taagin waxaan isu taagay hambalyo inaan idiin hambalyeeyo waxaan kaloo hadda igu dhalatay inaan idinku mahad celiyo sida aad ii soo dhaweyseen runtii madaxweynaha iyo garaad jaamac garaad Ismaaciil waxay hayeen si aan lay jirin labada gacmood runtii waxay ugu dambeysay xaramkii maraan tagay baasaas oo kale ay ahayd marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa aad baan ugu faraxsanahay qiimaha iyo maan lahayn anigu isumana haysan mana geeyo runtii laakiin tolkay reer SSC aad iyo aad wax weyn bay maanta maxay tahay arrinka isaga ay kordhinaya inta haddaan ka gudbo mahadnaqa iyo hambalyada ka bacdi waxaan idiin sheegayaa guul weyn baa la gaadhay guusha waxa lagu gaadhay muwaafaqada marka hore ilaahay amarkiisa baa lagu gaadhay marka xiga waxa lagu gaadho muwaafaqada reer SSC ama dhulbahante iyo fiqishini iyo wixii maxay tahay la halmaala marka labaadna waxa lagu gaadhay tolkood oo runtii ay u yeedheen oo u baahdeen anigu raggii halkan khaatumo raggii sameeyay baan ka mid ahaa muddo ilaa muddaan la warwareegi jiray runtii dadaalka iyagu ma yarayn dhulbahante ma yarayn laakiin marna waxaa naga maqnaa aanan u yeedhan tolkan maanta maxay tahay suurto geliyey guushaas baanaan u yeedhan oo aan caqligayguna siin waar u yeedha marka maanta haddii ilaahay idin garansiiyey oo ina garansiiyey muwaafaqadaas ayay ku timi guushaas waxaan marka rabaa guusha in la hayo Somaliland runtii waxa weeye been shalay doraad waxaan maqlayay dumar iyo rag iyo isu tagay oo le Muuse oo ciidanka fasax oo ciidan oo Mariyaa jeexjeexay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun marka waxay u egtahay 32 sanadood sheegtaan inay beentaa ku wadeen hadda waxaan ku arkayo lay tusay ninkii suldaankii guud ay sheegayeen oo booshash iyo bambooyin kuwii laga tuuritay gacanta xiran waa dagaalamayaa wuxuu soo weerarayaa SSC waa beentii ay maxay ku wardeen marka aniga maanta haddii aan soo naxajiyey laas caawadna xor ii tahay mugeeraan masaajka galo ayaa ay habsan waxaan leeyahay guul baad gaadheen runtii guushaas haya sidan uu hadda madaxweynuhu sheegayo waxa ciidankan hubkan la qabtay waa in lagu soo wareejiyaa gacanta maamulka runtii way isnaqaanaa haddii qofba meel la cararo ma ay suurtagal ma noqonayso aniga iyo wafdigan aan hogaaminayaa runtii waxaanu idiin wadnaa hambalyaanu idiin wadnaa waxaanu idiin wadnaa ballanqaad inaan laale intaad cagihi inaanu wax iskiin barbar taagno horena waa idiin barbar taagnayn haddana waa iskiin barbar taagaynaa ilaa intaad cagihiina isku taagsan diyaar baan idin waxaan wasiiraan wadaa wasiirka howlaha guud
ودان مسمين إنه إنما كان أول نجح عندي من لا نوعها إبان شلون تري تكرق بين نوعه أكيد وددي وادم يسترينا هدي الله يري أقسمي جودة بيها ويرسل الله بيها يوجل ماشي لخربية بيها وإيجيا عافماتكي وسيركي وودنا هدي بكرر يهي هواكي ونرسل الله وحنو ما أنت أنو إسسو كحيسني إن أنو موجينو إسقربتاجي الدولة هيدين ورنتي أنو ديارنا هاي waxaan ku soo gabagabaynayaa runtii waxaan idin sheegayaa madaxweynaha Saciid Deni iyo dawladda Puntland oo dhan marka hore waxaan idinka wadaa salaan imaatinkayna waan isla ogeyn sida uu sheegay Puntland tolkiin baa idin soo heliyay Puntland kama qayb galin dagaal madaxweynaha sheegay waxaan maqlayaa hadda way soo xamxaamanayaan idinkaan noo baahan oo isku filaaday idinka Turkiga hadii ay arrinka isaga ay maanta wadaan waxaan idin sheegayaa ku Puntland eegan mayso waa ka qayb galaysaa dadkeeda iyo dalkeeda daafacaysaa aniga maanta hadii aan soo naxajiyay laas caawadna xoriyay tahay مقيران مساجك قالوا أيها أحسن هذه بعد ما سنتين أنقو وسيدا عن شيء وإذا لا شغينا وحلا روحي كذا وإذا لا قبلنا بعد ما سنتين يي جوش